الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لباد أو كتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ولي سبب كي شيخ وأقرأ كتاب كبان كهد ليني ابن قيم رحمه الله وحو كعبر مواضع أما ميلاب بدن وكتبتي سأه wuxuu ku sheegay ama kitaabkanba in cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala ama cibaadahu addoomihiisu ay alla caabudaan oo alla ay baryaan khawfan wa tamaca. adducaa waa cibaado, waxayna u caabudaan oy u baryayaan khawfan cabsi iyo wa tamacan quudarayn iyo rajo. waxna way ka cabsanayaan, waxna way jarinayaan oo way rabaan. haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen khawfan min cadaabi, ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa ayay ka baqayaan, wa tamacan fii raxmatihi allatii hiya jannatu, iyo tamac ay raadinayaan oy dalbayaan raxmadda rabbi oo ah iyaduna jannadiisi. min hunaa haddaba halkan ayuu akhada alimaam ibnu lqayim alfikra, fikradda halkanuu ka qaatay, wuxuuna qoray kitaabkiisan la yidhaahdo xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax, ee kii dadka u kaxaynayay waddankii farxadda ayuu qoray. wuxuu xusuusinayaa dadka jannada iyo xaaladeeda iyo xaalka dadka ahlu jannada ah. shay tafsiil iyo si faahfaahsan buu uga hadlayaa, si uu qofku u siyaadsado shawqan ilayha, jacayl iyo hilow. shawqa waxaa la yidhahda inuu qofku u hiloobo waxa aadka uu jecel yahay, markaasna uu sii siyaadsado cibaadada iyo waxa la rabo in lagu galo jannadaas lagu aado ilaa aqsa darajatin mumkina, meesha u sarreysa inuu gaadhsiiyo. ma u malaynaya buuhi ibnulqayim qof kitaabkan aqriyey ama arkay sifada jannada na arkay. yacni xaqiiqadu ma aha, lama gaari karo in jannada sidii dhabta ahayd loo tilmaamo. sababtoo ana waxa weeye lianna fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar weeye. waxaa ku jira jannada waxaan indhuhuna weligood arag, aan dhaguhuna maqal, qalbina aan marnaba ku soo dhicin. sidaas daraaddeed baa wasfi kasta oo laga bixiyaay uu gaabanayaa. laakiin kitaabkan wuxuu ka mid yahay kutubta sida wanaagsan usoo cardiyey ama usoo bandhigay ayuu ku jiraa. ibnuqayim raximahullah kitaabkiisan wuxuu ku magacaabay baa nidhi xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax. isagoo ka hadlayaa wuxuu ihi magaca kitaabku wuxuu tataabuq ku sameyn. tataabuq waxa weye wuxuu isku mid waafaqayaa kitaabka iyo waxa uu ka hadlayo, wuxuuna macnihiisu iyo lafdigiisuna way iskeenayaan. allah baa og buuri waxa aan ula jeedo, in kitaabkan u ta'liifay rabbi bayna waxna ka qarsoonayn. maqsuudkuuna waxa weeye buuri kitaabkan aan u qoray bishaarati ahli sunna, dadka ahlu sunnada ah inaan u bishaareeyo waxa alla subxaanahu wa tacaala uu u yaboohay, jannada ugu yaboohayna inaan u sheego. maxaa jira iyagaa mustaxiqiin ahoo mutay bishaarada adduunka iyo aakharaba in loogu bishaareeyo. nicamta ilaahayna subxaanahu wa tacaala mid muuqatiya mid qarsoonba inuu alla siiyey. awliyadii rasuulka iyo xisbigiisii inay iyagu yihiin. qofka ka baxa wadadaasina noqon maayo, wuxuu noqonayaa bal cadow ilaahay buu noqonayaa wadada rasuulka iyo sunnadiisa qofka ka baxa. haddaba walaalayaal, kutubta ibnuqayim markaan aqrinaynen daraasaynayno sidaan kuwii horeba kusoo marnay, wax ma aha inaan kutubta xarfan u aqrinayno. intiqaabaan ku samaynaynaa oo waxbaan ka dooranaynaa. inagoo mararka qaarkood taqdiim iyo ta'khiirba ku samaynayna oo kala hormarinayna, inagoo tasarufna ku samaynayna maca cibaarada iyo aan intaa rabna aan ka dooranayno.
ujeedaduna waxaa weeye dadkan xilligan uu hanku yaraaday oo dadka himadoodii iska koobatay oo kutub dheer dheer iyo saacada loo fadhiya ayna joogi karaynin inaynu si kooban ugu soo gudbino biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. as'alu allah alkariim, allah ayaa waxaan weydiisanayaa inuu nagu anfaco, anigiyo idinkaba kitaabta nagu anfaco, alla inoo barakeeyo. waxaan alla ku weydiisanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala karamkiisa inaan noqono dhammaanteen dadka min ahliljanna, jannadiisa dadka lagu marti qaado oo rabbi uu ku sheegay subxaanah, waman yutic illaaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala allah ateecay ee rasuulka ateecay, aakharana meel lala dejiyey jannada ee alla subxaanahu wa tacaala kuwuu u nimceeyeen uu ku daray, oo ambiyada ilaahay iyo sidiiqiintii runta badnaa iyo shuhadadii iyo dadka wanaagsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala meel haynala dejiyo. wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum, sala allahuma wasalam calaa nabiyina wasaxbi ajmaciin.